أمجادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقت ترنو السلام فتوجت أبطالا daawadayaal aynu taxanaynay taariikhda reer banu israa'iil sii wadna ee nebi isxaaq waxa uu dhashay aabihii oo 100 jir ah hooyadii saarana ay tahay 90 jir halka uu walaalkii ismaaciilna uu jiray 14 sano ehlu kitaabku waxa ay sheegaan in markii da'da isxaaq ay gaadhay 40 sano uu aabihii ibraahim u guuriyay gabadh loo odhan jiray rifqa bint waa'il rifqa waxa ay noqotay gabadh madhaleys ah kadibna isxaaq ayaa eebba u bariyay waxana ay u dhashay laba wiil oo mataano ah kii weynaana waxa loo bixiyay Caysuu halka kii yarqaana loogu wanqalay Yacquub xilliga ay awlaadu Isxaaq u dhalatayna waxa ay da'diisu ahayd 60 sano ehlu kitaabku waxa ay sheegaan in uu Isxaaq aad u jeclaa Caysuu maxaa yeelay waxa uu ahaa curadkiisii halka ay Rifqa iyana aad u jeclayd Yacquub sababtoo ah waxa uu ahaa guri dambeyskeedii markii Isxaaq weynaaday waa uu indhabeelay waxana uu maalin u yeeray Caysuu oo ahaa wiilkiisii uu aadka u jeclaa Isxaaq waxa uu Caysuu ka codsaday in uu u keeno hilib una soo kariyo waxa kale oo Isxaaq u ballan qaaday haddii uu sidaas sameeyo in uu duco aad u qiimo badan ugu ducayn doono kadibna si halka haleela ayuu Caysuu u baxay oo inta uu gabooyihiisii qaatay duurka xulay maxaa yeelay waxa uu Caysuu ahaa ugaarsade halka uu walaalkiisa yar ee Yacquubna uu ariga dhaqan jiray Rifqa oo maqlaysay Isxaaq iyo Caysuu hadalkooda ayaa u tagtay Yacquub oo waxa ay ku amartay in uu laba wan ka soo qalo arigiisa una kariyo sidii uu aabihii jeclaa markii uu dhameeyay Yacquub karintii ayay hooyadii u gelisay dhuugii Caysuu maxaa yeelay waxa uu Caysuu ahaa ugaarsade oo waxa uu xidhan jiray maryo uu hargaha ka samaysay Yacquub markii uu hilbihii u keenay Isxaaq waxa uu Isxaaq ku yiri kuma ayaa tahay waxana uu Yacquub ugu jawaabay waxaan ahay inankaagii Isxaaq ayaa inta uu taabtay Yacquub ku yiri codkan aan maqlayaa waa kii Yacquub maradan aan taabtayna waa tii Caysuu kadibna waxa uu bilaabay cunistii hilbaha markii uu dhargay ayuu Isxaaq gacmaha cirka u taagay oo ugu duceeyay in uu Ilaahay ka dhigo kan walaalihii ugu awoodda badan leh ee u taliya Ilaahayna uu barakeeyo ubadkiisa iyo maalkoodaba waqti yar kadib waxa yimi Caysuu oo sida ugaadh inta uu degdeg u kariyay ayuu u geeyay aabihii si uu u cuno Isxaaq markii hilbihii loo toosiyay ayuu weydiiyay qofka uu yahay Caysuuna waxa uu u sheegay inuu yahay wiilkiisii mar labaad ayuu haddana Isxaaq weydiin kale ku boobay oo ku yiri oo miyaad ahayn qofkii hadeer hilbaha ay keenay Caysuu ayaa fahmay in looga soo horreeyay ducadii aabihii Yacquubna isagoo iska dhigaya uu jaaniska ka faa'iideystay aad ayuu u cadhooday oo u xanaaqay waa uu caytamay Caysuu dhowr jeerna waxa uu isku dayay in uu u gacan qaado walaalkii haddana waxa uu kaga waabtay laqabeynta aabihii aakhirkii waxa Caysuu uu ku nadray in marka aabihii dhinto uu Yacquub dili doono sida oo kalena waxa uu ka codsaday aabihii Isxaaq in uu isagana u duceeyo Isxaaq waxa uu eebba u weydiiyay Caysuu inuu ubadkiisa ka dhigo kuwa dhulka hanta arsaaqadooda iyo midhahoodana uu u badiyo Rifqa waxa ay u warwartay xaaladda wiilkeeda waxana ay ku amartay Yacquub inuu qabto dhulka Xaraan halkaas oo uu joogay abtigii Laabaan waxa kale oo ay Yacquub kula sii talisay inuu hablaha abtigii mid ka mid ah guursado halkaasna uu ku noolaado ilaa inta uu walaalkii ka caro burburayo sidiina waa uu yeelay Yacquub waxa uu bilaabay safarkiisii uu ku tagayay dhulka Xaraan waxana uu gabalkii u dhacay isagoo oo wali jidka ku sii jira meel aan ka fogeyn dabadii uu marayay inta uu u beeray oo uu salaxday meel uu jiifsado soona qaatay dhagax quman oo uu barkado ayuu seexday oo habeenkii halkaas ayuu u hoyday intii uu hurday Yacquub ayaa waxa uu riyo ku arkay nuur samada ka soo lusha oo ilaa dhulka laalaada iyo malaa'igtii oo iyana ka soo degaysa samada waxa kale oo uu maqlay Ilaahay oo la hadlayo oo ku leh waan ku barakayn doonaa adiga iyo ubadkaaga waxana aan dhulka dhaxalsiin doonaa adiga iyo ubadkaaga Yacquub waxa uu soo hanbabaray isagoo oo ku faraxsan riyadii uu arkay waxana uu Ilaahay u nadray haddii uu dib ugu soo noqdo reerkooda isagoo nabad qaba inuu halkan ka dhisi doono masaajid dhammaan hantida uu haysana uu 10 meelood oo meel sadaqadaysan doono waxana uu dhagixii uu barkanaa ku calaamasaday meeshii uu jiifay isagoo u bixiyay Baytu'iil oo la micnaa guriga Ilaahay waana meesha imika uu ka dhisan yahay masjidu Baytul Maqdis markii uu Yacquub u yimi abtigii Laabaan ee uu muddo la joogay ayuu ka helay oo jeclaaday inan uu abtigii dhalay oo aad u qurux badneed Raaxiilna la oran jiray waxana ay Raaxiil walaal la ahaayeen inan kale oo ka weyn oo la yaal la oran jiray taas oo lahayd habeeno oo habeenkii aan waxba ka indhaha ka arki jirin aadna aan qurux badnayn Yacquub waxa uu abtigii weydiistay in uu u guuriyo Raaxiil
waxaana uu abtigii ku xidhay shardi ah inuu adhiga 7 sane u raaco, kadibna marka uu dhammaysto muddada uu u guurin doono inantiisa. Yacquubna waa uu ka ogolaaday arrintii. markii uu 7 sane dhammaystay Yacquub ayuu Laabaan diyaariyey aroos weyn iyo casuumad heer sarreysa, taas oo uu inantiisa ugu guurinayay Yacquub. waxaana meeshaas habeennimadii ka dhacday xaflad miiqaam sare leh. subaxnimadii Yacquub oo cadhaysan ayaa kusoo kalahay abtigii Laabaan oo u sheegay inuu abtigii ka baxay heshiiskii ay dhigteen, kaas oo ahaa inuu u guurin doono Raaxiil. abtigiina uu ka baxay heshiiskii oo uu u guuriyey una soo qariyey inantii la odhan jiray Layaa, taas oo aanu rabin Yacquub. abtigii waxa uu sheegay in ay ceeb dhaqankooda ku tahay in inanta yar la guuriyo iyada oo ay joogto tii ka weyneed. waxa kale oo uu u sheegay in haddii uu 7 sane oo dambe adhiga u raaco uu u guurin doono Raaxiil, waana uu ka ogolaaday Yacquub arrintaana. 7 sane ee dambe markay dhammaadeen ayuu Yacquub guursaday Raaxiil oo ahayd gabadhiisii hore ee Layaa walaasheed. shareecadooduna waqtigaa way ogoleyd in 2 hablood oo walaalo ah la wada qabo. Laabaan hablihiisii waxa uu siiyey 2 jaariyadood oo waxa uu Raaxiil siiyey mid la odhan jiray Bulha, halka uu Layaana siiyey jaariyad kale oo loo yaqaanay Zulfa. ilaahay waxa uu Layaa siiyey wiilal, waxaana ay Yacquub u dhashay Roobiil, Shamcuun, Laawaa iyo Yahuudaa. markii ay 4 dhashay ayay Raaxiil oo aan dhali jirin ka hinaasay, waxaana ay Yacquub siisay jaariyadeedii Bulha oo u dhashay 2 wiil oo loo bixiyey Daan iyo Niftaal. markii ay halkaa maraysay ayay haddana maseertay Layaa oo waxa ay iyadu Yacquub u guurisay jaariyadeedii la odhan jiray Zulfa, waxaana ay Zulfa u dhashay Yacquub 2 wiil oo loo kala bixiyey Jaad iyo Ashiir. dabadeedna waxa uu qaaday Layaa qudheedii oo waxa ay iyaduna dhashay wiil 5aad oo loo bixiyey Isaakhir. kadibna uur kale ayay qaaday oo waxa ay dhashay wiil 6aad oo isna loogu magac daray Zaabiloon. ugu dambeyntiina waxa ay Layaa u dhashay Yacquub inantii keliya ee uu dhalay oo loo bixiyey Diinaa. intaas kadib Raaxiil ayaa eebba bariday oo waxa ay weydiisatay inuu ubad siiyo. eebbana waa uu ka aqbalay ducadeedii oo waa ka ajiibay, waxaana uu siiyey oo ay dhashay wiil sharaf badan oo qurux badan, kaas oo loo bixiyey Yuusuf. eebbana uu u doortay inuu sida aabihii iyo awoowayaashii oo kale uu ka mid noqdo ambiyadiisa. dhacdooyinkaas oo dhammiba waxay dhacayeen intii uu Yacquub joogay dhulka Xaraan, isagoo abtigii adhiga u raacaya. guud ahaan muddadii uu abtigii adhiga u raacayay waxa ay gaadhaysaa 20 sano oo u qaybsanta sida 7 sano oo uu ku guursaday Layaa iyo 7 kale oo ku guursaday Raaxiil. sidoo kalena waxa uu la sii joogay oo uu sii raacay abtigii adhiga 6 sano oo dambe, waxaana isku noqonaysaa muddadu 20 sano. Yacquub waxa uu u tegay abtigii Laabaan, waxaana uu u sheegay inuu tegayo oo ku noqonayo dhulkii ay reerkoodu yaaleen. Laabaan ayaa u sheegay Yacquub in sababtiisa uu Ilaahay xoolaha ugu barakeeyey. waxa kale oo uu ka codsaday in uu weydiiso wax alle waxa uu doonayo. Yacquubna waxa uu ka codsaday oo weydiisay abtigii in uu siiyo xoolihiisa uu ku jirta ah oo dhan inta sanadkan dhalanaysa ee leh astaamo iyo midabo uu sheegay, waana uu ka ogolaaday abtigii. inamadii uu Laabaan dhalay ayay arrintii u cuntami weyday oo laboodkii xoolaha sanadkaa riminayay waxa ay ka dhigeen kuwo aan lahayn astaamihii iyo midabadii uu Yacquub codsaday si ay u dhashaan xoolo ka duwan kuwii uu rabay. Yacquub oo isagoo qudhiisu arrintaa ka war helay ayaa soo qaaday xantoobo lows iyo midho ah oo inta uu burburiyey ayuu ku shubay dharkii xooluhu ka cabayeen. ilaahay amarkiina neef kasta oo cabay biyihii, neefkii uurka uu ku sitay waxa uu isku bedelay oo noqday mid leh astaamihii iyo midabadii uu Yacquub dalbaday, waxaana ay noqdeen dhammaan xoolihii sanadkaa dhashay kuwo leh astaamihii iyo midabadii uu Yacquub dalbaday. markii ay koreen isaga ayaa qaatay oo la wareegay mulkigoodii. Yacquub oo wato xoolo iyo addoomo aad u badan ayaa kasoo guuray reer abtigii iyo dhulkii Xaraan, waxaana uu usoo jihaystay dhankii uu aabihii yaalay iyo dhulkii Falastiin. sida ay ahlu kitaabka oo qisadan soo wariyay sheegaanna waxay intaas ku dareen in ay Raaxiil soo xaday sanamo uu aabaheed lahaa. markii uu Yacquub in cabaar ah socday ayaa waxaa ka daba yimi abtigii Laabaan. waxa uu Yacquub ku canaantay sababta uu usoo wargelin waayey waqtiga uu guurayo si uu hablihiisa iyo ubadkiisa usii sagootiyo. waxaa kale oo uu weydiiyey sababta ay usoo qaateen sanamadiisii. markii uu Yacquub u sheegay in aanu sanamadiisii soo qaadanna waxa uu amar ku bixiyey in dhammaan agabkooda iyo gaadiidkoodaba la baadho. sidii uu amarku ahaa ayaa loo fuliyey oo meel kasta waa la baadhay. Raaxiil waxa ay sanamadii gelisay heeryadii awrkii ay saarneyd. markii loo sheegay in la baadhayo aynay kasoo degto waxay ugu calaacashay in ay bugto oo ay leedahay dhiiggii caadada, sidiina waa lagu dhaafay laguna waayey sanamadii. Laabaan waxa uu Yacquub kula ballamay in aanu hablihiisa bahdilin oo aanu yasin, sida oo kalena aanu la guursan. waxa kale oo uu meeshii Laabaan ku qalay xoolo uu watay, cunto badan oo uu kusii sagootinayayna wuu kariyey. kadibna inta la ismac salaameeyey ayaa la kala boqolay. dhulka Saaciir markii uu Yacquub in cabaar ah usoo jiray
ayuu la kulmay malaa'ig, waxaana ay ugu bashaareeyeen inuu usoo dhowaaday meeshii uu ku socday. waxaana uu yacquub diray nin kasii hormara oo sii wargeliya reerahay ku socdaan, una sii sheego ujeedadooda. ninkii la diray markii uu dib ugu soo noqday yacquub ayuu u sheegay in uu caysu soo kaxaysay 400 oo ciidan ah. aad ayuu u cabsaday yacquub oo ilaahay ayuu ka baryey in uu ka duwo sharka caysu. waxa kale oo uu ku celceliyey inuu oofin doono nadarkii uu galay ee ahaa haddii uu nabadqab kusoo noqdo in uu dhisi doono masaajid. waxa kale oo uu yacquub u diyaariyey caysu hadyad qiimo badan oo ka koobnayd 200 oo laxaad, 20 wan iyo 200 oo riyaad iyo 20 orgac. sida oo kale waxaa hadyada ku jiray 30 halaad oo irmaan, 40 sac iyo 10 dibi. waxa kale oo uu yacquub ku daray hadyada 30 dameer ah oo isugu jiray 10 lab ah iyo 10 dhadiga. nooc kasta oo xoolahaas ka mid ah yacquub gooni ayuu u soocay oo mid walba waxa uu u dhiibay addoomo sii kaxeeya, waxaana uu kala dambaysiiyey masaafo kala fog. sidoo kale waxaa lagula ballamay addoommadii kaxeeyey xoolaha in marka uu caysu soo maro ee uu weydiiyo cidda ay yihiin iyo xoolahan cidda uu u wado, ay ku yidhaahdaan waxa aanu ka soconnaa addoonkaaga yacquub oo waxa uu xoolahan usoo hadyadeeyey sayidkiisa caysu. sidii ay qorsheeyeen ayay u dhacday oo koox kasta markii uu soo maray caysu uuna weydiiyey cidda ay yihiin iyo cidda xoolahanba leh, waxay ugu jawaabeen sidii lagu ballamay. yacquub iyo qoyskiisii oo ka kooban 2diisii dumar ahaa, ubadkiisii iyo 2diisii addoomood ee bulha iyo zulfa, iyagu way ugu dambeeyeen oo maalintiina way nagaan jireen, habeenkiina waa ay socon jireen. habeen ka mid a habeenadii ay safarka ku jireen ayuu nin u yimi yacquub, waana ay legdameen oo waxaa xoog weynaaday ninkii. yacquubna dhaawac ayuu soo gaadhsiiyey. aroortii markii waagu baryey ayuu ninkii weydiiyey yacquub magaciisa, isna waxa uu u sheegay in yacquub la yidhaahdo. kadibna waxa uu ku yidhi, maanta kadib waad beddelaysaa magacaaga oo israa'iil ayaad la bixaysaa. israa'iilna waxa ay u dhigantaa oo la micno tahay addoonkii ilaahay. yacquub oo yaaban ayaa weydiiyey isaga magaciisa iyo cidda uu yahay. ninkiina uma uu jawaabin oo wuu iska tegey. markaas ayuu yacquub ogaaday inuu malag yahay. isla subaxnimadaasba waxa uu yacquub la kulmay walaalkii caysu iyo colkii uu watay oo inta uu yacquub kasoo hormaray qoyskiisii ayuu 7 jeer u sujuuday caysu, sujuuddaas oo waqtigaa u bannaanayd una ahayd salaantooda. caysu markii uu arkay walaalkii oo u sujuudsan ayuu inta uu u yimi mucaalaqeeyey, falxadna waa uu la ilmeeyey. kadibna caysu ayaa eegay ubadkii iyo oryihii yacquub oo isaga oo yaaban ayuu weydiiyey oo ku yidhi, waxaan oo dad ahi maxay ahaayeen? yacquubna waxa ugu jawaabay, dadkan oo dhani waa ehelkii iyo ubadkii uu ilaahay siiyey. 2dii addoomeed ee yacquub guursaday iyo ubadkay dhaleen ayaa soo dhowaaday oo u sujuuday caysu. waxaa ku xigtay layaa iyo ubadkeedii, waxaana ugu dambeeyey raaxiil iyo wiilkeedii yuusuf. caysu iyo colkii uu watay ayaa horkacay yacquub, waxaana ay u dhaqaaqeen buurihii saaciir. markii uu yacquub marayay qudus oo markaa ahayd magaalo yaroo orshalim la odhan jiray, ayuu koonaheeda ka iibsaday beer oo inta uu taandhadiisii ka taagtay ayuu ka dhisay masaajid. waana meeshii uu ku calaamadsaday dhagaxa ee uu ku nadray inuu ilaahay macbad uga dhisi doono. masaajidkaas oo ahaa baytulmaqdis, kaasoo markii dambena uu nebi sulaymaan uu hagaajiyey oo dib u dhis ballaadhan ku sameeyey.